waxaan ka maqlay buu ducada nabi maxamed oo yiri ninka galabtiina mar yiraahda subaxdiina mar yiraahda haduu galab ducada yiri ilaa waagu ka baryaayo masiiba kuma dhacdo buu rasuulku yiri haduu waagu markuu baryo yiraahdana ilaa uu ka galabaysanay masiiba ma soo gaadho bismillaahir rahmaanir rahiim soo dhawow waxa ku wada duco aad iyo aad ku anfacaysa xaaladaha lagu jiro oo aad ku jirto hadaad Soomaali tahay Soomaaliya jooga aad iyo aad ku anfacaysa ducadan hadii aad subaxii markaad soo baxaysa akhrisato ilaa galabkii inta laga gaarayo waxaad ku jirtaa gacan amaan ah yaani ducadan hadaad akhrisato maalinka wax musiibo ah ma arkaysid hadii habeenkii markaad seexanaysa aad akhrisataan habeenkaas oo dhan ma arkaysid wax musiibo ah hadaba soo dhawow ducada aan marka hore wada dhageysano kadibna aan isla fiirino qabalku markuu dhaco iyo marka waagu uu bariyo ninka ducada akhrista Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkal wa anta rabbul arshil karim ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim waxaan ka maqlay buu ducada nabi maxamed oo yiri ninka galabtiina mar yiraahda subaxdiina mar yiraahda haduu galab ducada yiri ilaa waagu ka baryaayo masiiba kuma dhacdo buu rasuulku yiri haduu waagu markuu baryo yiraahdana ilaa uu ka galabaysanay masiiba ma soo gaadho ducadan waxay mudan tahay in la xafido oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah oo idil ay ducadan xafidaan markastana ay ku gambadaan iyada ducadan waxa nabigu uu sheegay waa sida uu u sheegay waa biyo kama dhibcaan wax loogu laabanaya ma jiraan nabigu wuxuu yiri ninka akhrista qofka akhrista ducadan markuu subaxii soo baxaya akhrista maalinkaas oo dhan wax mushkilad iyo dhib ma arkayo ha sax habeenkii hadda akhrisatana waa sidoo kale ma arkaysid Allahu akbar waxa laga yaabaa adigu oo gurigaaga ka soo baxay xaaladda lagu sugan yahay yaani lagaaga warrama waad garanaysaa xaaladda dadka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin ducadan sababta aan kugu wadaagayo oo aan rabo inaad maaragtay ka faa'iideysataan waxa weeye qof walba waxa uu rabaa in uu nolol degan ku noolaado oo Ilaahay uu amaansado ayuu rabaa hadaba Ilaahay baa ku amaansanaya ducadan akhriso gurigaaga adoo ka soo baxay oo aan waxba ogeyn ba waxa laga yaabaa intaadan soo gaarin meeshii aad u socotay ee shaqada goobtaada shaqada intaadan gaarin ayaa waxa laga yaabaa in aad la kulanto dhibaato noloshaada galaafata tuuba ka soo horbaxaya telefoon inuu ka qaato darteed buu ku dilaya wax waji kaama laha hay wadooyinkii waa burbursan yihiin oo wadooyin nidaamsan ma jiraan gaari baad sanka ka soo galaya uu ku kala goynaya waa musiibo wax nidaam ah oo kale ah ma jiraan adoo goobtaada iska jooga ba alla kuma samadiide dab iyo holac iyo qarax iyo waxba la kulmaysa waxaad ogtahay adigu oo aad qaban kartaa hina ma jiraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ku badbaadin kara Ilaahayna wuxuu kugu badbaadinaya inaad hoos tagtay Ilaahay oo aad isaga bariso tirada Ilaahu Rabbi oo ibadbaad Ilaahu Rabbi oo naftayda iyo maalkayga iyo sharafkayga iyo aakhirada iyo cirdigayga iyo wixii dhan iyo ehelkayga iyo dadkayga iyo wadankayga iyo diintayda wax dhan badbaadi inaad tiraahdo Ilaahay uu kugu badbaadin kara hadaba maxaa ku diidaya ducadan afarta kalima inaad barato oo aad xafido hadana markastana aad akhrisato maxaa ku diidaya koow ajar baad ka helaysaa waa lagu badbaadinaya dadka ehelka ku ah walaalaha ku ah arurtaada waalidkaaga saaxiibadaada deriskaaga deegaankaaga dadka aad garanayso bar hada aad u barato uga faa'iideey dadkaas bar ducadan waa duca muhiim ah aad bay muhiim u tahay sababta aan idin kula wadaagayna waa inaad kulli baantaan ka faa'iideysa waanad mahadsantiin boqolkiiba boqol baad mahadsantiin barakooba karaabooba